marka madaxweyne Ismaaciil Cumar waxaan leenahay Ilaahay ka jazaa'isiyo nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam ana wa kafirul yatiimi ka hatain aniga iyo qofka agoonka kafaala qaada sidaaban yaan nahay yani xagga Ilaahay waxa kale oo jirta nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu yiri ninka koriya laba gabdhood ama saddex gabdhood Ilaahay wuxuu yani xijaab uga sameeyaa naarta maxaad u malaynaysaa 300 iyo siyaado gabdhood ayaa halkan wax ka barta oo aad madaxweyne maaraytaan u dhistay deyrka ay ku soo hiranayaan insha Allah dadaalkii aan wadnay haddana ay Djibouti iyo safaaradda Djibouti halkii baan ka sii wadi doonaa farxadeena sidii baan insha Allah uga qayb gali doonaa hadii Ilaahay yiraahdo ciidaha maantana waxaan leenahay hal naga gudoomo deeqdan yar oo ah raashinkii ay bisha cuni lahaayeen hadii Ilaahay yiraahdo kumana ekaanayna intaas idinka Ilaahay waa sii wadi doonaa oo halkaas ka sii wadi doonaa anoo ka faa'iideysanaya fursadan yar waxaan ugu yeeraynaa dhamaan dadka ganacsatada ah dadka madaxda ah bisha Ramadaan waa bil khayr qabta waa bil amalka la laabo in loo kala badiyo oo khayrka kan loo soo kala badiyo intaan ka warqabina ay maanta bahda saxaafadda iyo telefishinadu ay gaarsiiyaan ugu dambeyn waxaan idinku tahaniyadeynayaa walaashay Nuurto iyo teamka la shaqeynaya waxaan hadda soo booqanay qolalka iyo dhamaan maaragtay adeegyada iskuulku leeyahay sidaad ugu faraadayteen oo nadaafadda iyo bilicda iskuulka waa wax aad iyo aad loogu farxo runtii guriga mar baa la dhisaa laakiin dhaqaale buu u baahan yahay si fiican ayaad u dhaqaaleyseen si fiican baad u ilaaliseen waxaan leenahay waxa idinka la idin soo gaarsiiyaa wax la idinku aamini karo ummadana intaas aan u sheegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh